ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. talada shanaad ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ina siiyey waa walaa tukthir ad-daxik fa ina kathrata ad-daxik tumiitu al-qalba. qosolka ha farabadinin, waayo qosolka faraha badani qalbiga ayuu dilaa. qosolku waa khariizo ama wax ilaahay uu ku beeray dadka oo xayawaanaadka kale ama noolayaasha kale ay kaga duwan yihiin. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa qosli jiray, qosolkiisu se qahqah ma ahayn. kaana yatabasam, waa dhoola caddeyn jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaa naadiran, xaalado yar mooyaane. markaa qofka muslimkaa la odhan maayo haba qoslim oo afka uun buur, bal qofka muslimkaah maruu kaa soo horbaxo inaad u dhoola caddayso. waxaa lagu daray sadaqada, wa tabasumuka fii wajhi akhiika sadaqa. walaalkaa markaad kulantaan inaad u dhoola caddaysa waa sadaqad buuhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. in wax sababi kara inaad qosashaa hadduu dhaco, inaad qosashaa wax qosol sababi karaa hadduu dhaco iyadana lama diidana. laakiin waxaa la diiday waa maxay? waa qosol fara badan oo sabab iyo sabab la-aanba qofku uu qoslayo. waayo qosolka faraha badan muxuu ka turjumaya? afla can inaafic. qofku wixii waxtarka u lahaa inuu moogan yahay uu kasii jeedo, wa anahu mushtaqilun fi ma laa yacniih, iyo inuu ku shuqloon yahay, uu ku shababan yahay waxaan khusayn oo aan waxtaru lahayn. in badan baynu aragnaa dad dhalinyar u badan oo maqaaxiya fadhiya oo wakti dheer ku qaata hadal iyo qosol tiro badan oo dhex socda. qosolkaa faraha badani wuxuu sababayaa qofku ilaahay dikrigiisa inuu ka mashquulay, oo wuxuu buuxinayaa meel qofku xuska ilaahay uu ku buuxin lahaa ama waxtara adduunye uu ku buuxsan lahaa. waa dayicis uu waktigii qiimaha badnaa ilaahay siiye u dayacayo. wuxuu sababayaa qalbi qalal. bal adiguba isqiyaas oo miisaanka isa saar. maalinta uu qosolkaagu bato iyo sheekadaadu maxaad qalbigaaga ka dareentaa? waxaad ka dareentaa deganaanshiyo xasilooni, sac qalbigaagu inuu ballaadhay, mise waxaad ka dareentaa cidhiidhi iyo culays? qofka qalbigiisa uu iimaan ku jiro, iimaan uu ku kala sooci karo waxaa xune danta aanu ahayn iyo waxa wanaagsan ee maslaxadiisu ay ku jirta, taa wuu dareemi karaa. lihaada rasuulku muu odhan ha qoslina, laakiin wuxuu uhi qosolka ha badinina. waayo qosolka faraha badani qofka iimaankiisuu daciifinaya, khushuucdiisuu tagsiinaya, xusuusnaantii ilaahay iyo aakhiro ayuu qofka seejinaya. haddii qofka qalbigiisu uu dhinto ama uu daciifana, inta kalena way la ciiraysaa, waayo qalbiga ayay cuskan tahay. alaa waina fi ljasadi mudqa ida salaxat salaxa aljasadu kulu waida fasadat fasada aljasadu kulu alaa wahiya alqalb. allahuma rabbana atina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqina cadaab الnar. allahuma ina nasaluka alhuda wاltuqa wاlcafaafa wاlghina. allahuma calim jahil اlmuslimiin wahdi daalahum wاjmac kalimathm clى alxaqi اlmubiin. allahuma اnsur اlislaam wاlmuslimiin. اللهم انصر المسلمين المستضعفين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وتجنب اللفظين إن كليهما ومقال جهم عندنا سيان. يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان، واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقظان. كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان، واعلم بأن الله رب واحد
متنزه عن ثالث أو ثاني، الأول المبدي بغير بداية، والآخر المفني وليس بفاني، وكلامه صفة له وجلاله منه بلا أمد ولا حدثان.